Ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekada boqortooyadii Dhurwaaga oo la xiriirta Diiriye oo ka lumay qoyskooda una galay boqortooyo Dhurwaayadu leeyihiin. Sannado badan ayuu la noolaa cunidda hilibka cayriin iyo la hadalka Dhurwaaga ayuu bartay intii uu Dhurwaayada la noolaa. Waa sheeko xiise gaara leh. Qaybihii hore haddii aadan soo daawan, fadlan soo daawo si aad ula socotid meesha ay marayso sheekadu. Qaybtii saddexaadne waxay ku bilaabanaysaa sidaan. Diiriye hooyadii niyaddeeda kama uusan bixin maalin qura, inkastoo maalmo badan ay raadiyeen wiilkoodii, hase ahaatee raqdiis iyo ruuxdiis midna way arki waayeen. Waxaa intaa u dheeraa habeen riyood ay ku arki jirtay mar walba isaga oo inta badan dhex maraya meel kayn ah. Waxayna aaminsanayd inaan wiilkeedii dhiman, kolkii eebbaweyne qorane ay maalin arki doonto, iyadoona arrintaa ku ducaysan jirtay mar walba oo ay salaadaha tukato. Hase yeeshee ciddii waa ka guurtay aaggii ay deganayd, waxayse ka soo agdhowaan jireen xilliga guga oo meesha waxaa ka agdhowaa balliyo biyo qabatin lahaa. Diiriye dhankiisa wuxuu in badan ku tababartay dabacadihii ay lahaayeen Dhurwaayada uu la dhaqmayay, waxa uuna ka xasuusto qoyskiisii waa in kooban. Hase ahaatee waa aadamoo waxyaalo badan buu kaga duwan yahay. Dushiisa intii badnayd waxaa ka soo baxay dhogor. Dhar qaadashadii ma jirto, cidyuhuna waxa ay noqdeen kuwo aad u dhaadheer oo adag. Waxa uuna yeeshay tuur, maadaama uu dheeraaday bahasha uu la degan yahay Dhurwaayadani aanu qof taagni ku dhex joogi karin. Hadalka aadamahana ku hadlidiisii ma karo, laakiin waa fahmayaa wax badan oo ka mid ah. Waa weynaaday oo waxaa soo galay dareemo badan oo aadamuhu sifo u leeyahay. Hase yeeshee meel uu ka helayo ma jirto, oo waxa uu la dhaqan yahay waa Dhurwaayo. Waxa uu noloshiisaas ahayd ku jiraba. Hanaankiisa qaraabashadana wuu u bogay boqorkii Dhurwaayada, ogaadin iyo ammaanna u hayaba. Waxa uu habeenkii dambe sidii caadada u ahayd kor yimaadeen isaga iyo xayn saaxiibadii ah reer markaas xoolahoodii soo xaraystay. Waa sheekaysanayaan reerku. Xoolaha iyo bahallo sheekooyin la xiriira baana la gashay sheekadii, waxayna ka mid noqotay sheekadoodii in aagga aad looga hadalhayo Dhurwaa cagadad leh oo daxirada xoolaha gadaal ka faydaya, neefka riman ka leexanaya. Markaas Diiriye saaxiibadiis kama foga reerka. Waa fahmeen in iyaga la hadalhayo. Haddii Diiriye hadalkiisii dhegaystay, waxa uu gartay codka islaan u weyn reerka. Waa hooyadii Dayaxo, waxaana uu fahmay in reerku yahay qoyskii uu ka dhashay. Habeenkaas waxaa reerkii lagu gaaf wareegaba, waxaa hadba gees laga istaagaba. Diiriyena ka hakanaya saaxiibadii inay xoolo ka qaadaan. Waxay go'aan ku gaareen in laga tago reerkan oo cido kaloo xoolahoodu degan yihiin la doonto. Habeenkii markii qaraabashadii soo idlaatay, kooxdii isla socotay waxa ay ku laabteen xaruntii boqortooyada. Diiriye isaga waxaa si gaara ula soo darsay xaalad cusub, oo waxa uu soo ogaaday in qoyskii uu ka dhashay haatan ay meel xaruntooda laga gaaro degan yihiin. Hase ahaatee maxay kuugu taal, maalin ma bixi karo, oo waxa uu ka baqi in la arko markaas la dilo. Waxaana uu yeeshay habdhaqan Dhurwaa, hase yeeshee waxaan weli ka bi'in sifooyin badan oo aadamuhu leeyahay. Habeenkii habeenkaa xigay, Diiriye waxa uu u soo kici tamay qaraabasho, waxaase uu ka soo hor baxay saaxiibadii qaraabashada ku helin lahaa. Waa nin dan lehe, haddiiba waa isa soo daayay. Waxa uuna isa soo taagay meel aan saa uga fogayn ardaagii reerkoodu ku caweynayay. Intaas waxaa noogu dhan qaybtii saddexaad ee sheekada boqortooyadii Dhurwaaga. La socda qaybta afaraad oo ugu dambaysa oo ah qayb aad u xiiso badan. Mahadsanidin.